Shumiska ayaa dawo u ah 4 cudur ilaa hal xanuun oo ku dhaca bini'aadamka. Halka xanuun ee shumisku dawada u yahay waa murugada. Qofka isagoo murugaysan haddii lamaanihiisu si kedis u shumiyo, wuxuu dareemi doonaa ildoogsi iyo hilmaam inuu hilmaamo waxyaabihii uu markaas ka murugsanaa. wuxuuna taas beddelkeeda dareemi doonaa farxad zaa'id ah. haddaba cudurrada 4 ah aan u guda galno. Cudurka koowaad waa masayrka. Marka uu masayro mid ka mid ah lamaanaha, haddii midka kale uu si kedis ah u shumiyo, wuxuu dareemi doonaa kalsooni iyo inuu hilmaamo wixii markaas uu ka masayray, isagoo taas beddelkeeda dareemi doona kalsooni xad dhaaf ah. haddaba cudurka labaad waa jacaylka. Labada lamaane markay isjecel yihiin, inta badan waxaa la arkaa mid ka mid ah inuu dhankiisa jacaylku ku badan yahay. haddii mid ka mid ah uu shumiyo midka kale, wuxuu dareemi doonaa farxad xad dhaaf ah, ildoogsi, naxariis iyo jacayl ka duwan midka hore. haddii jacaylka hore ahaa mid xanuun wata, uu islahaa qofna kulama dareemayo jacaylkan, haddaba wuxuu helay qof jacaylka la dareemayo oo la qaba. taasna wuu ku farxi doonaa, wuuna ku caafimaadayaa. haddaba cudurka saddexaad waa hurdo la'aanta. haddii mid ka mid ah lamaanayaasha uu hurdo la'aan dareemo, uu midka kale si kedis ah dhabanada uga shumiyo, kuna dhaho ereyo dareen leh, isagoo markaas ereyadaas shumiska ku lamaansiinaya, waxaa laga yaabaa lamaanahaas isla markiiba inuu hurdo dareemo, sidaasna uu ku jiifto. lamaanahaas hurdo la'aanta dareemaya waxaa laga yaabaa inuu midka kale ka fikirayay ama uu wax uun ka damqanayay, balse haddii shumis kedis ah labada dhaban laga siiyo, ereyo macaana la dareensiiyo, wuu hilmaami doonaa waxyaabihii uu ka fikirayay. cudurka afraad waa madax xanuunka, welwelka, cabsida iyo wixii la halmaala. haddaba mid ka mid ah lamaanayaasha hadduu madax xanuun dareemayo, haddii midka kale uu si kedis ah dhabanada uga dhunkado ama sujuuda, kuna yidhaahdo waad caafimaadaysaa, aniga ayaa kula dareemaya xanuunka, lamaanahaas durbadiiba wuu bogsan doonaa, wuxuuna qalbigiisa ka dhadhacsiin doonaa inuu caafimaaday, maadaama uu helay qof xanuunka la qaybsada.